hay'adda Khadija Foundation oo safka hore kaga jirta hay'adaha khayriga ee Somaliland ee ka shaqeeya gurmadka iyo samata bixinta dadka jilicda ee abaaruhu saameeyeen oo ay gaarsiiyaan deeqa isugu jira raashin, biyo dhaamis iyo xoolo. Sidoo kalena hay'addu waxay kaalin mugle kaga jirta kor u qaadida adeegyada waxbaridda jilalka aan awoodin in ay waxbarasho helaan qoysaska agoomaha iyo danyarta ah ee ku dhaqan Somaliland. Mas'uuliyiinta hay'adda khayriga ee Khadija Foundation Bashir Xasan Xamari iyo Rooda Cali ayaa 9 maalmood ee ugu danbeeyay bisha Dulxij safar ku maray qaar ka mid ah deegaanada gobolada Maroodijeex, Saaxil, Togdheer iyo Daadmareed oo ay ka mid yihiin deegaanada Salaxley, Cagafta, Duruqsi, Cali Ciise, Laan Mulaaxo, Dhoobaweyne, Ceel Bilicile, Balay Xaaji Diiriye, Xaqayamalaas iyo Tuulo Gumbur. Dhammaan bulshada ku nool deegaanadaasina ay gaarsiiyeen deeqa isugu jira raashin noocyadiisa kala duwan oo loogu talagalay maalmaha khayr kale. waxaan joognaa deegaanka degmada Duruqsi, deegaanka Cagafta. hawsheedii gargaar baan ku jirnaa maalin cusub iyo waqti cusub dad baahan oo halka degan waa IDP barakaca oo cidina u warhayn wax gargaarana ma yaala helaan way qaybsadeen. alxamdulilaahi rabbil caalamiin ilaahayna ha u barakeeyaan leena iyaga ku u soo dhiibay oo walaalahooda ah muxsiniinta ah ilaahay miisaanka xasanaadka Allah u saaro. anigoo Xuseen Cabdi Boos ahna gudoomiye ku-xigeenka degmada Kusima gudoomiyaha marka hore ilaahay baa mahad leh. marka labaad Khadija Foundation hawlwadeenkeeda dadka muxsiniinta ee muuminiinta waa la hubaa kuwan dadka sadaqada u geystay inay jannada ku galayaan iyo kuwii ka shaqeeyay intaba maanta 510 qoys ayaa maanta halkan ku raashinka aan loogu qaybiyay. maaha markii koowaad iyo markii tobnaad iyo markii 20aad midna maaha. Khadija Foundation iyo groupka ay wax ka soo qaadaan ay wax soo baxsadeen muxsiniinta waxa weeye meesha la yiraahdo Cagafta iyaga tirsadaan meel cid kale oo wax siisaa ma jirto. dadka muxsiniinta ee muuminiinta ee waxaysta waxaan leenahay ku dayda dadka muuminiinta ee wax soo dhiibtay dadka jilicsan ee abaartu hayso ee xooli ka baxeen ee sigada taagan ee ambiye iyo baatoon haynin maanta waxaan soo gaadhnay annagoo rixladayadii dheereedan ka soo bilownay Duruqsi aanu 8 tuulo soo marnay maantana 9 tahay. waxaanu joognaa maxay ahayd deegaanka Xaqayamalaas iyadoo maalin khayr qabta waqfad Carafa aanu soomanahay dadkii soo dhiibtayna ilaahay miisaan xasanaadka u saaro annagana ajarka iyo xasanaadka ayaamaha mubaaraka inuu ilaahay naga qablo. aad iyo aad baan idin salaamaya. kulli sana wantu tayibiin ونعاد عليكم بالخير والبركات. geesta kale hay'adda Khadija Foundation dhammaan goobahan ay ka soo shaqeysay waxa ku soo barakacay dad ka soo hayaamay deegaanada miyiga fogfog ee abaaruhu saameeyeen. taasina ay sii kordhisay culayska dhibaato ee ay hore ula daaladhacayeen sida biyo la'aan iyo cunto yari. waxaanay bulshada ka dalbadeen isla markaasna ay ka codsadeen gargaar degdega in lala soo gaadho. Xamse Xayd, wararka laanta afka Soomaaliga CBA TV, Hargeysa.